markii ugu horeysay ee aan masaladan ka hadlay waxay ahayd 1991kii annagoo xerihii qaxootiga joogna meesha la yiraahdo harta sheekha ayaan markaa joogay waxaan ka aqriyay kitaab tafsiira deedna tafsiirkii wuxuu ila soo gaaray suuratu raxmaanna waa suuradda ka hadasha thaqalaynka labada la isku yiraahdo aljinn wal-ins hordhacii suuradda ayaa waxaan kaga hadlay waqti ilaa nus saaca cajalad hal saaca dhinaceed ayaan mowduuca jinka iyo insiga aan kaga hadlay iyo makhluuqaadka jinka iyo siday u nool yihiin cajaladaas waxaa iga duubay alxuseyni annagoo harta sheekha joogna qaybtaa yaree nusa saacaha socotay meel dheer bay gaadhay dad badanna way ta'hiirisay anigoo aan wax badan kaga hadlin isla 94kaas waxaan u guuray markii dagaalku Hargeysa ka dhacay Ceerigaabo meel la yiraahdo Ceerigaabo anigoo ku nool ayaa farsamadeedii dhakhtarnimadii xoolaha ayaa waxaan shaqo kaga helay hay-ad la oran jiray Actionaid hay-adaasi waxay ay qaadatay inaan xagga caafimaadka xoolaha gobolka aan la taliyo uga noqdo anigu markaa isuma dhigin ama uma diyaar garoobin inaan noqdo dhakhtar dhexdhexaadiya jinka iyo insiga markaa qorshahayga may ahayn inaan mowduuca aan faragashado aniga oo iska dhakhtarkii ah ayaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa la iigu yeedhay 3 masalo oo aad iyo aad u xanuun badan oo arrimaha jinka xidhiidh la leh ayaa Ceerigaabo igala kulmay 3daa masalo markaa masiirkii noloshayda iyo jihadii aan nolosha ku waday way iga bedeshay 3daa arrimood waxay ahaayeen maalmaha ka mid ah ayaa la iigu yeedhay wiil dhalinyaro oo aan qiyaastiis leh waa 22 jir oo sariir jiifa aad buu wiilkaasi u xanuunsanayay xumad badanina way haysay dadka markaa ii yeedhay waxay og yihiin cajaladihii aan ka duubay 10ka ahaa baa gaadhay marka waxay iga magansadeen bal inaan ninkan fiiriyo xanuunkiisu wuxuu yahay anigoo markaa isla kaashanaya aqoontaydii maadiga ahayd iyo baxthigii iyo raadraacii aan caalamkan ku sameeyay inankii waan eegay aayado qur'aanaan ku aqriyay wax raada waan ka waayay marka waxaan fiiriyay symptomskii xanuunkiisa markiiba waxaan arkay inankan xanuunkiisu beerka yahay maadaama waxaan arkay xanuunkan ay cagaarshowga yidhaahdaan inankiioo midabkiisu bedelan yahay Jones baa markaa ku dhacay marka waxaan ku yiri wiilkan wax caalamkan inaga qarsoon oo dhibaato u geystay ma jireen xanuunkiisu waxa weeye Jones intaan berri shay baad u sameynayno wax dufanaha siinina deedna waxay igu yiraahdeen galabta ayaanu islaam fooxisaa u yeedhnayo dabadeedna wan ayay soo qaaday waa la qalay baridii wanka ayaa ilmihii la waraabiyay waa Jones baana haya marka waxaan ku yiri teteniyatiisu way siman tahay laakiin hadda sunba waraabiseen beerkuna ma qaadi kara bariye bal berri aroorta in isla gaadhno markaan iridka saa uga baxay inankii wuu matagay dhiig isla markiiba uu dhintay xanuun bay taasi igu reebtay anigoo taa qaba ayaa maalin dambana waxaa la iigu yeedhay wiil isna dhalinyaro ah da'yar wiilkaas waxaa ku dhacay kaneecaduna saa ogtihiin waxay burburisaa unugyada cascas ee dhiig qofku markuu dhiig beelana waa hadraa
xumadii kaneecaduna waa u raacday marka qofkii inankii isdhaaf buu ku hadlayaa inankii isdhaaf ayuu ku hadlayaa inankiibaa aanu tegey inankii maradan ka rogay been idiin sheegi maaye sidii karbaash loola dhacayay baa jirkiisii waxaad moodaa waa inuu jeexjeexmay dhangad bilaa naxariisa baa lala dhacay oo inankii oo mucuurtoona oo naftu meelay ka baxda uunla baan u tegey inankii xaaladiisii baan eegay xumadiisii baan ka yaabay deedna isla aroornimadii waxaan ka qaaday shaybaan waxaan ka helay kaneeco inankii dawadii kaneecadaan siinay alxamdulilah wuu bogsay ta saddexaadna waxay ahayd qof dumar ah oo aan u malaynaya inay mardhal tahay ama laba dhal ayaa la igu yeedhay iyadana qoftaa dumar ah t b baa ku dhacday iyaguse laakiin markaa waxay aaminsan yihiin inuu jindureeyey qoftii baan eegay qur-aan baan ku aqriyey waan gartay markaa inaanu xanuun caalamka inaga qarsoon raad kule aanu ahayn waxaan eegay astaamihii xanuunkeeda maxaan ku t b-duna dee ciddii aqoon la isma qariso qofku midabkiisuu isbedelaa oo haraggeennan caadiga ahee iftiinka liqaya wuu soo celiyaa iftiinka wuu birbirqayaa qofka wejigiisa oo dhididkiisu wuu urayaa wuxuu urayaa aan qofku u fadhiisan karayn marka 12 habeenimo wixii ka dambeeyana qufac baanu la seexanayn qofku intaa waxaa usii dheer xaakadii baabu tufayey qoftaa dumar ah ee t b-da qabta intoo girgira la shiday baa xaarkii dameeraha baa lagu ololiyey markaasaa lagu deday markaasaa markay qayliso la leeyahay ha u joojinina waa jinkii ha u joojinina waa jinkii qoftii oo rafaadsan ayaan u tegey deedna xaaladeedii baan fiiriyey waxaa ii soo baxday xanuunkeedu inuu xanuun caadiya uu yahay oo uu yahay weliba t b shaybaarkii baan candhuuftii laga qaaday tijaabadii koowaadba positive bay noqotay qoftii dumarka ahaydna sidii baa ilaahay ku caafiyey marka waan fakeray waxaan ka fakeray haddii aada xayawaan aada badbaadiso iyo inaad bini aadmi badbaadiso ayamaa kuu roon waxaan go-aansaday in aan bini aadmiga xun aan ka badbaadin karo haddaan badbaadin karo dabeedna shaqadii hay-adda waan risaan gariyey waxaan go-aansaday inaan meel u fadhiisto oo aan dadkii marka xanuunadoodii kala jiheeyo oo wixii il ah ishu dee waata ogtihiinoo intaasoo cudur bay keeni kartaa walcaynu xaqun caalamkan inaga hooseeyana in badan baa la isku dhici karaa iyana dhib bay keenayaan wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruuna wakaana rabbuka basiira halkiibaa markaa anigu dhakhtarnimadii xoolaha aan faraha ka qaaday oo aan go-aansaday inaan baabkan daaweynta maxaanku idhaahdaa makhluuqaadka inaga hooseeya waxay dhib u geystaan aan farageliyo